waxaa jirta sheeko cajiib ah oo ku saabsan qaabka maskaxda bini'aadanka ee u shaqayso uu ilaahay subxaana wa tacaala u sameeyey mucjizooyinka ilaahay ayayna ka mid tahay hadda ka hor ayaa waxaa la sheegay maamo waayeel ah oo Chinese ah in dhiikar inta ku dhacay maskaxda ku dhuftay ee kooma gashay kadib markay koomadii ka soo baxday ayaa maamadii waxaa la sheegay keliya inay ku hadli kartay luqadda ingiriiska luqadii hooyadeed oo Chinese-kana ay ka luntay luqadii Chinese-ka ee ku dhalatay ayaa maskaxdeeda ka tirtirantay horaan waxay ugu hadli jirtay luqadda ingiriiska iyo Chinese-ka dhakhaatiirtii iyo kalkaalisayaashii la joogay way ku wareereen su'aal kasta waxay ku jawaabaysaa luqadda ingiriiska Chinese-ka dhan waa ilowday kadib marka khubarada oo cilmi baarista ku samaysa maskaxda oo ku takhasusay maskaxda ayaa waxay sheegeen in arrintan aysan maamada keligeed ku koobneen oo ay tahay qaabka maskaxda bini'aadanka ee u shaqayso waxaa la leeyahay marka labada qayb ee maskaxda dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda ayay luqadaha kasoo kala baxaan luqadda Chinese-ka labada dhinacba way isticmaashaa maskaxda markii maaragtay lagu hadlaayo labada qayb ayaa maaragtay ku fududeynaysa inaad ku hadashid balse waxaa la dhahay luqadda ingiriiska hal dhinac bis ayaa la isticmaalaa markii lagu hadlaayo maamadan marka waxaa la dhahay maskaxdii markuu bahalkii dhiikarka ku dhuftay waxaa keliya u badbaaday halkii dhinac oo ingiriiska ku jiray arrintaa marka waxay ugu dhalisay fikir weyn oo caadi ahayn oo ku saabsan ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa iyo cilmigiisa iyo mucjizadiisa qaabka maskaxda bini'aadanka ay u shaqaynaysay iyo annaga inta yar aan ka naqaano ayaa wax weyn iiga soo baxay horaan ma u maqashay arrintan maxayse kula tahay hadday hadda kugu horreyso maxaa kaaga baxay fadlan fikirkaaga ila wadaag asxaabtaadana la wadaag